Sharaxaada dhufisjiidad ee ka soo baxa waa tallaabo u dhow aragtida wax walba. Qaab cusub oo loo sharaxo dhufisjiidadka ayaa noo keeni kara tallaabo ku dhow xalinta khilaafaadka aan la xalin karin hadda ka hor ee ay leedahay makaanikada tirada. Fiisigisyahanada Mikko Partanen iyo Jukka Tulkki oo ka tirsan jaamacadda Aalto ee dalka Finland ayaa hindisay hab cusub oo ay uga fikiraan dhufjiidadka, taas oo ay ku sheegeen in ay la jaanqaadi karto qaabka caadiga ah ee fiisigiska qayb ka mid ah, aragtida qeexaysa saddexda quwadood ee asaasiga ah ee koonka, xooggan, daciif ah, iyo electromagnetic. Ma ahan aragti dhufisjiideed quantum ah, laakiin waxay naga caawin kartaa inaan halkaas gaarno. Haddii tani ay noqoto inay horseedo aragti buuxda oo ku saabsan dhufjiidadka, kadibna ugu dambayntii waxay ka jawaabi doontaa dhibaatooyinka aadka u adag ee fahamka kelinimada ee godadka madow iyo Big Bang. Partanen ayaa yidhi, aragti si wada jir ah u qeexaysa dhammaan xoogaga asaasiga ah ee dabiiciga ah waxaa badanaa loogu yeeraa aragtida wax walba. Qaar ka mid ah su'aalaha asaasiga ah ee fiisigiska ayaa weli ah kuwo aan laga jawaabin. Tusaale ahaan, aragtiyaha hadda jira weli ma sharaxin sababta ay u jirto arrin ka badan antimatter ee caalamka la arki karo. Dhufisjiidadu runtii waa qodxaha dhinaca sharaxaadda wanaagsan ee habdhaqanka caalamka. Waa ta afraad, uguna liidata, xoogga asaasiga ah, laakiin si fiican ulama iyaarin saddexda kale. Aragtida quantum waxay qeexaysaa sida caalamka jirku u dhaqmo miisaan yar oo dhab ah, atomiga iyo subatomic, laakiin kuma shaqaynayso caalamka baaxadda weyn, halkaas oo dhufisjiidku la wareego. Fiisigiska qadiimiga ah iyo isu ekaanshaha guud waxay si fiican u sifeeyaan dhufjiidadka, laakiin maaha boqortooyada tirada. Ilaa hadda, labada aragtiyood waxay caddeeyeen inaan la xallin karin, haddana caalamku si farxad leh ayay labadaba ugu jiraan. Sidaa awgeed, saynisyahanadu waxay rumaysan yihiin inay jirto hab looga dhigi karo inay si wacan u ciyaaraan. Sababtoo ah dhibaatadu waxay caddaatay in aan la xallin karin, si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay in aan la xallin doonin hal mar, laakiin kor u kaca, laakiin muhiim ah, tallaabooyin. Tallaabada kordhinta ee Partanen iyo Tulkki ay qaadeen waa inay ku qeexeen dhufisjiidka macnaha guud ee cabbiraadda, fikradda aragtida goobta quantum taasoo habdhaqanka qaybaha lagu sifeeyey goob gaar ah. Goobta korontada electromagnetic field waa hal tusaale oo ah cabbirka. Sidoo kale goobta dhufisjiidka. Meelaha ugu caansan ee cabbiraadda waa garoonka korontada. Marka qaybaha korontadu ay isdhexgalaan, waxay isdhexgalaan iyaga oo dhex maraya goobta korontada, taas oo ah goobta cabbirka ku habboon, Tulkki ayaa sharaxay. Sidaas darteed, marka aan helno qaybo tamar leh, isdhexgalka ay leeyihiin sababtoo ah waxay leeyihiin tamar waxay ku dhici doontaa goobta culayska. Aragtida dhufisjiidadka cusub waxay nagu soo dhowaysaa xalinta arrimaheeda sayniska quantum. Jaantus muujinaya wakhtiga bannaan ee goobta tirada iyo qalooca laga filayo dhufjiidadka tirada. Qaabka caadiga ah waa aragti cabbiraysa oo qeexaysa xoogga badan, daciifka ah, iyo xoogga korontada, wuxuuna leeyahay astaamo gaar ah. Si loo soo dhoweeyo aragtida dhufisjiidadka ee qaabka caadiga ah, Partanen iyo Tulkki waxay rabeen inay ku dabaqaan astaamaha cabbiraadda culayska. Natiijooyinkooda la daabacay waxay u muuqdaan kuwo rajo leh. Aragtideenu waxay keentaa aragtida cabbiraadda dhufisjiidadka ku dhowaad aragtiyada cabbirka ee model standard marka la barbar dhigo aragtiyaha cabbirka caadiga ah ee culayska, ayay ku qoraan warqaddooda. Waxaa muhiim ah in la ogaado in shaqadu aad iyo aad uga fog tahay aragtida dhufjiidadka quantumka. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka dhigan tahay waddo muhiim ah oo wax isweydiin ah, oo laga yaabo inay si weyn u horumariso raadinta xal u helidda dhibaatadan adag ee fiisigiska. Si taas loo gaaro, Partanen iyo Tulkki waxay ku martiqaadaan saynisyahano kale inay ka qayb qaataan horumarinta shaqada. Warqaddu waxay ku socotaa meel gaar ah, aragtiduna si fiican ayay u shaqaysaa xadkaas, laakiin waxay u baahan doontaa fiisigis badan iyo tijaabinta walaaca. Faham buuxa oo ku saabsan saamaynta dhufisjiidadka midaysan ee aragtiyaha goobta, cilmi baarayaashu waxay qoraan, waxaa la heli doonaa oo keliya kadib shaqo dheeraad ah.